bal waxaad iga warantaa maxamed faarax mow faarax bal aragti ahaan dareenkaagu siduu yahay saad u aragto in bilad sharafeedan maamuuskan heerkan ay ku siiso boqorada ingiriiska aragti ahaan horta wallahi waxaan leeyahay alxamdulilah waxaan salaamaya ummadda soomaaliya meel kasta joogto adduunka ku nooshahay marka taa ka bacdi waxaan leeyahay wallahi biladda sharafta la siiyey aad baan ugu faraxsanahay waa waxaan niyadeyda ku jirin aan salonacsan weligaa lahaa xeerkaasa gaari oo biladda sidaa quruxda badan baa lagu siin waa gartay maxay uga dhigan tahay noloshaada marka biladan inaad heshay imean hab maamuuseedkan inaad heshay maxay noloshaada uga dhigan tahay marka horta dadka dhan ma la siiya dadka qaarkood ma la siiya waxay kusoo biiriyeen wadanka amba waxay u qabteen amba charity work oo kamida caawiska sameeyeen marka ana birada waxay igu sii casheen guusha badanaan soo hooyey dalkayga imika usoo hooyey ingiriiska marka wallahi ma islahayn ani birladana waa heli doontaa kumana markaan yaraa orodka bilaabay kumaan lahayn heerkan aan ka gaadhiy oo birladaas oo magacaga waxa lagu odhan doonaa sir waa wax qaaliya waa garta hadda caalamka oo dhan waa laga yaqaanaa mow faarax dunida inteeda badan dadka soomaalida muslimiinta sidoo kale marka maxay kugu soo kordhinaysaa ay kula tahay in nin caana awalba aad ahayd in hadda seer lagu dhaho oo mudnaantaasi lagu siiyo horta wallahi waa wax sharaf fiican waa wax fiican ismaan lahayn dee anoo yar baan wadanka imday haddana waa alxamdulilah guushan soo hooyey wax aan u dadaalay marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliya meel kasta joogta dadka o dhan cashan wuxuu qofka niyadiisa gashado wuu samayn karaa waxaan leenahay alxamdulilah dee qof kasta waa inuu hard work waa inuu shaqeeya on qof kasta si fiican waxaan samayna si fiican u samaynaa waa gartay dhowr jeer ayaad qaaday bilado noocyo kala duwan ciyaaraha hadday noqoto kuwa lagugu maamuusay intaba marka noloshaada maxaad isleedahay way ku dhiman tahay oo waad rajeyn lahayd inaad gaarto horta wallahi alxamdulilah ilaahay cashan meesha fiican ii gaarsiiyey anaan ku dadaalay marka waxaan isleeyahay hadii ilahay daa sanadkan waa 2017 ku galnay oo bisha maanta 1 ayaan isleedahay track inaan sameeyo London World Championshipkaas leeyahay anigu marka lena dhiirigelinaysan ugu celin lahaa kabacdina waxaan rabaa inaan dekadii roadkii waxaa ordo marathonki waxa waa gartay marka sanadkan waxaa ku qorsheysan inaad tababaradaada sii wado oo aad diyaariso kadibna aad ciyaarahaasi aad ka qayb gasho sanadkan ka bacdi August baan gelinayo World Championshipka oo ka dhacay Ingiriiska ka bacdina waxaan leeyahay sidii dekada ama roadka oo marathonka aan isku diyaarina aan ka baran lahaa waayo roadka marka geshid sida track kale maaha waa kala duwan yihiin waa gartay bal mow faaraxow dadka noocaaga oo kaleeto ah ee horey loo siiyey biladan oo maaragtay adduunka magaca kale kuwaad nooga sheegi karto oo boqorada ingiriiska ay siisay hadda wallahi waxa kamid ah la siiyey Alex Ferguson oo Manchester United tabar jiray in badan waxa kamid ah la siiyey Sir Steve Redgrave oo samayn jiray Olympic qaaday 5 Olympic oo rowing sameeyay marka dad badan ma lagu siin oo waxa kamid ah xitaa David Beckham wali la siin oo area adduunka meel kasta la garanay marka biladan aan waxaan leeyahay aad baan mahadsantahay biladan casha la gartay aan laga siiyey aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay aad baan mahadsantahay dadkii ka dambeeyay oo dhahay ninkan hala siiyo waa gartay miyaa lagu codeeyey oo waxaad ku heshay in lagu codeeyey mise boqortooyada ayada ayaa ku qiimeysay oo si gaar go'aankaas u gaartay horta marka hore dadka waa la qiimeeyaa food baa lagalaa marka la pass gareeyo haddana maxaa dhahay ayada decisionka qaata marka ayada ay garatay laakiin marka ugu horeysa waa la codeynayaa oo loo sii sheegaya waa gartay waxaan arki jiray biladihii hore markaad orodka ku qaado kii aad qaaday 1500 mitir oo kaleeto iyo waxaa la waxaad u hibeyn jirtay caruurtaada mataanaha marbaad u hibeysay intaan xasuusta gabadha yare roone xaaskaaga ay dhashay sidoo kaleeto marbaad u hibeysay hadda tan yaad u hibeynaysaa in lagu yiri seer oo maaragtay inkastoon dareemayo maamuus lagu siiyey inay tahay haddana
هذا تن حاسكال أنا هذا دتكي قرني جس شرف كي فامي كي دتكي قدن أنا واحد دتكي جميل قدن فامي كي عيال كي حاس كي أنت قدن ده بلدن ووح أنا يمكن لي جسوه يما ووح أنا دتكي إلى شقيني أي نسوه ين صح مركب بلدن مدة سوماليين بنلعب كل هذا هي وحكم إذا محاد هي هذا فرنسا إذا تنقل هذا وطن كان كسوكري وطن كي جيبوتي الشرف كل يوم بكل هذا هاي وطن كل شيء سماه إن بكل هذا هاي ما كانت تذكر أنا هاي مصارحة تذكر يجمدها أنا بكل يوم dhalinyaro yaryar oo waxaa jirta mihnada orodka ee adigu haatan aad caanka kaga noqotay caalamka beegsanayo Soomaali ah oo sidaadoo kale Soomaaliya ku dhashay ku korayo wali jooga marka ma jeclaan lahayd inaad kuwaasi fursado siiso xataa dhalinyarada aad tababarto ama aad gacan siiso si xataa ay macno u yeeshaan adduunka waan ku tali jiraa wallahi hadii la taa waan ku tali jiraa عشان sidii dhalinyaradu qaban lahayn amba coach noqonaa amba waxaan ka bartay orodka aan ku soo bari lahaa dadka waxaan ku tali jiraa laakiin hadda imkaano hawsheedii tahay in afciyaal leeman hayo kama xubban xaga family-ga xaga orodka inta waqtigeyga markaas intaas ma siiyo tababarka uma ku jira labada waqtiba marka intan faraaqo leh way yartahay marka hadii la hayda markaan joojiyo orodyaashan leeyahay waxaan ku beerin karaan ku beeriyo qofkii raba inuu ka gaaro heer orodka sidaadoo kaleeto maxaad ku dhihi lahayd ereyga aad isleedahay wiil dhalinyaro ama gabar dhalinyaro oo hiigsanaysa sidaadoo kale meel sare inay gaarto maxaad dhihi lahayd wallahi hada walxamdulillah masha ilaahayna keenay hada qofka sabanuna chance ku haysto inuu ku faa'iideysto waa wax important ah wax aad loo sameeyo marka chance ka anima ka faa'iideyso maxamed Soomaaliya dadka chance kule meesha ay tacliin noqoto waxa noqdo ka faa'iideyso waxa ma hayna markasta iska reebno inna fiirsanaano madow baan hay Soomaaliya baan haysanaan hay ma gaari karo oo negative waxay ma fiicna inkastoo waana dadka qof kale laga rabo 2% waana 3% ka keenta meesha aad u shaqeeyay marka tadeedana waxaan ka bilaabay markaan 12 jir ahaa iminkan waxaan 3 jira meesha ugu fiican ku joogaa marka intaas sanadood waan ku dadaalay inta sidaan 7 sanadood ugu socnaan lahaa marka dadaal wax ka soo baahan jamaxariyaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaan la salaan iyo wadankayga Djibouti ku soo koray ayaan salaan leeyahay la sharafsana ummadda Soomaaliya oo meel kasta joogta adduunka ka walaal